bismillah meeshan kasii wadaa waa qaybta labaad qaybta roiga istaagtay so let's kasii wadna meeshana okay muuqaalkan yar aan kasoo hadalnay soo nagastaada marka okay waxaan gudbaynaa types of CPU noocyada ama qaybaha CPU so in the past computer processors used numbers to identify the processor waqtiga tagay computerada waxay isticmaali jireen nambaro si loo qeexo processorka and help identify faster processors marka yani taas saacidi jirtay faster processors ka nambaradaas baa lagu ogaan jiray for example tusaale ahaan the Intel 486 يعني 486 marka la leeyahay 80 ka horeyso laakiin waxa aan baxay waxay tahay saddexda number ee dambo so marka 8486 processor is faster uu ka surca badnaa uu ka xawaare sareeyo uu ka dhaqso badnaa than the 8386 ama inta koomaha ku jirto kan 386 so boqol ayaa u dhaxaysa kan 386 meeshu ka yahay kan waxa waa 486 so marka kana dambeeyay marka so dambeyntaas uu ka features badnaa so taas fudeynayso inuu ka surca badnaado okay after the introduction of the Intel Pentium processor okay kadib marka okay hordhici Pentium processor which would technically be the 8580 80586 all computer processors started using name like Athlon, Duron, Pentium and Celeron. Okay, marka la soo gaaray wixii ka dambeeyay 486 wixii ka dambeeyay normal wuxuu noqonaa 486 baa ku daraysaa meeqa noqonaysaa 586 laakiin meesha 586 la dhihi lahaa lama siinin numberkaas 80gan kulli wala wada socda laakiin saddexda number dan baa la xisaabinaa 386 486 586 meeshu ka noqon lahaa waxa loo bedelay sheekadii magacyo sida Athlon, Duron, Pentium iyo Celeron okay maanta marka in addition to the different names of computer processors they are okay waxa lagu sii diray marka magacyadii waxa la sii raaciyay there are different architectures naqshada kaleento oo loo yaqaano 32 bit and 64 bit okay waxyaabaha computer processorka lagu xushto ayay ka mid yihiin marka so marka mid kan oo double ka ah wuu ka xawaare badan yahay midka halka ah yani 32 ah okay speedki iyo capabilitieska surcadi iyo xajmiga awoodda inta uu qaaday so below is a list of the more common types of CPUs for home or business computers so marka waxaan arki doonaa qayb hoos aan ku arki doonaa next page yani list oo common market CPU ah oo ku haboon guryaha ama ganacsiga computerada guryaha yaala ama kuwa ganacsiga loogu talagalay okay notes marka xasuusa lagu yiri si gaar ah there are more multiple versions for some of these CPU types yani noocyada arki doona qaarkooda ayaa waxay leeyihiin multiple versions يعني نوع فرشنا kala duwan asigiyo hal qaab ah hal magac la wato ayuu inta farshan lahaan karaa okay tusaale ahaan AMD processors okay waan aragnaa listigan okay waqtigan baa nooga dhumayo laakiin waad arki kareysaan K62 K63 Athlon Duron okay sida ma aragtay u kala dambeeyeen okay Intel processors kana ayagana processorka ay soo mareen waa kana kii ugu horeeyay aan soo arkayna sawirkiisa waa kana 4004 waxa ku xiga marka 8080 so 80 ka marka 80 ka meel iska dhigo 6 ku darsantay 86 ay noqotay 87 marka la maray sheekada waxa loo bedelay 286
286 tan koobinta ku jirto 386 ku sii xigtay okay waxa kale ku sii xigay 486 marka 486 maraaye meesha 586 ay ka noqon lahayd Pentium laga dhigay soo sidaan isugu xigay marka Pentium MWX Pentium Pro Pentium 2 Celeron Pentium 3 marka waa kuwana sidaan marka sida Pentium 4 okay qaabkaas si socdeen ilaa laga soo gaaro ragan okay core 1315 core marka i5 marka sido i7 iyo i9 hadda nooca ugu dambeeyo soo sidaas hadda marooyaan waxaan kaloo qaadanaynaa marka oo inoo xigo what are the main functions of the CPU marka shaqada uu qabto ayadoo waan soo aragnay xoogaa haddana si kaloo faahfaahsan ama hab kale ama dhinac kale ka fiirnayna the main function of the CPU is processing instructions shaqada ugu weyn oo qabto CPU-ga waa inuu process gareeyaa oo ka shaqaysiiyaa amarada given to the computer or computerka la siiyo so this is why the CPU is known as the brain waa sababta brain loogu yaqaano of the PC-ga brainkiisa sababta loogu yaqaano maskaxda computerka every operation that's carried out shaqo kasta oo la qabanayo including keystrokes opening and closing programs yani xuruufaha garaaceen oo furitaanka barnaamijka ama xiritaanka barnaamijyada and saving files keedinta faaliyada is carried out by the CPU ragana ninkana qabta shaqada this function is separated into 4 functions shaqadaas marka 4 qayb ayaa loo qaybi or steps 4 shaqo ama 4 tilaabo for every operation fetch decode execute and store يعني inuu xogta meel ka soo qaado ramka ka soo qaado inuu qaabeeyo maaragtay inuu execution ku sameeyo fulling ku sameeyo kadibna uu keediyo sida caadiga ah typically the main part of the CPU qaybaha ugu muhiimsan CPU-ga responsible mas'uulka ka ah for carrying out the operation qabashada howlaha waa the arithmetical logical unit and the control unit marka labada qaybood ugu muhiimsan shaqada ugu badan qabtaan waay qayb waa arithmetical logical unit la yiraahdaa waa xisaabaadka iyo waxa soo dhan qaabilsan tahay ku dhufo ka jar iyo ku dar iyo qayb wixii la mid ah so iyo qaybta kale control unit oo iyadana ah wixii sax iyo qalad wax dhan kala saarayso so hadaad computerka laba ku dar aad tiraahdo oo 6 ku sii wararkeeda leedahay marka si taas u dhicin waxa waaye si nadiif ah xisaabaadka oo si sax ah waxa uu qabanayo oo logical ah qaybtaas so qaybtaan inuu wax walba iska qaadanin ama si qalad uusan wax u qaadanin ayay idin qaabilsan tahay adigoo tir computerka magaca hadduu ku dhaw 36 jira isma lahan marka su'aashii jawaabta isma lahan inay wixii isla haadaan ee wixina sax ahaadaan ay kala qaabilsan yihiin the ALU carries ALU waxa laga soo gaabiyay arithmetical logical unit the ALU carries out arithmetical and logical operation and makes decisions marka go'aanadan way sameeysaa where the CU fetches decodes and executes the processes meesha uu CU-ga control unit-ka laga soo gaabiyay ay iyada xogta ka soo qaadanayso RAM-kii ay qaabeynayso nadaaminayso ayna fulinayso process-ka other characteristics for functional performance of the CPU are the log speed and the numbers of instructions it can perform in a second shaqooyinka kale intana marka uu qabanayo waxa waaye yani surcada saacada gargaraacista waaye okay numberada amarada uu sameyn karo secondkii okay qaybaha CPU-gu ka kooban yahay marka insha Allah casharka ayaan ku qaadanaynaa ayagoo waliba markaan kaasha zaid ku ah iyo labadana siiro faahfaahsan oo qaada dhigeeno kulay inaan waqtiga aan casharka bixinayo meesha 10ka inaan ka badiyaan ku dadaali doona insha Allah kulay inta hay inoo joogto caawa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh